السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن oo wanaagsan daawadayaal meel kasto daafaha caalamka joogtaan kuna soo dhawaado qorfayn gaaban oo ku eegi doono wafti ballaaran oo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya jawxo oo ka qayb galay shir muhiim ah oo lagu qabtay wadanka Mareykanka wafti ballaaran uu hogaaminayay Axmed Macherten oo ka tirsan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya jawxo ayaa ka kulan kula qaatay hay'adaha dawliga ah ee dalka Mareykanka magaalada caasimadda Mareykanka ee Washington DC waftida oo markii ay shirka soo dhameeyeen lagu soo dhaweeyay magaalada Minneapolis ee xarunta gobolka Minnesota ayaa warbixin siiyay bulshadii halka ku soo dhaweysay kulanka ayaa ahaa say ay u sheegeen waftida jawxa ayaa diiradda lagu saaray xaaladda Ethiopia iyo sidoo kale caqabadaha waaweyn ee ka dhashay qodida shidaalka mid ka mid ah waftida ka qayb gashay shirka oo ah Carab Maxamed Aadan oo ka tirsan golaha dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaa asna saaka waraysi u siiyay idaacadda afka Soomaaliga ee BBC Somali ku sheegay in xaalado muhiim ah ay kaga hadleen shirka uguna muhiimsanaa sidii wax looga qaban lahaa xaaladda caafimaadka dadyoga ku waxyeelowday shidaalka ay qodaysay shirkadda China ah sidoo kale mas'uulkan ka tirsan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya jawxo ayaa sheegay in uu sii socon doono kulamo goongoone ah maalmo kadib laskuguna imaan doono kulamo kale jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya jawxo ayaa door siyaasadeed oo muhiim ah ka wada cariga Mareykanka kaasoo loogu sii ambaqaadaya taabagelinta siyaasadda arrimaha dibadda ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya jawxo ayaa qaban doonta maalmaha soo socda shir ballaaran oo lagaga hadlayo arrimihii ay ka qayb galeen madaxda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya jawxo kaasoo la sheegay in lagu qaban doono magaalada Minnesota ee cariga Mareykanka. Waad mahadsantihiin soo dhaweyntaadna soo dhaweyseen Minneapolis oo qabowgeedii xilligii lagu jiro aad u soo wada bambaxdeen si aad hawsha ummadda aad qayb uga qaadan lahaydeen annagu arbacadii baan khamiistii talaadadii baan halkan ka baxnay arbacadiina waxay noo ahayd shaqo hawshaan u baxnayna waxaa ugu muhiimsan ay ku saabsanayd inaan qadiyadda iyo danta ummadda Soomaalida ogaadeenaya inaan u gaadhsiino meel kastoo suurtagal ka tahay waxaanan shirar kala duwan la yeelanay labada aqal ee waddankan looga taliyo golaha sanadka iyo golaha shacabka ama koongareeska loo yaqaano shirarka kala duwan oo ilaa 4 shir oo kala duwan ahaa waxaanu kaga hadlaynay oo aanu kaga doodaynay annaga iyo madaxdii kale aan la kulannayba xaaladda maanta Ethiopia ku jirto xaaladda annaga dad ahaan iyo dhul ahaan aan ku jirno gaar ahaan batroolka ama gaaska dhulkana laga qodo cudurrada ka dhashay dhibaatada uu keenay nabad guurka uu keenay iyo waxyaabo badan oo la xiriiro hawshii aanu meesha u tagnay maalin dhanbay 9kii aroornimo ilaa 6dii fiidnimo baanu ku jirnay iyadoo faahfaahsan oo siyaabo kala duwan loo diyaariyay kolley waan inii soo gudbin doonaa laakiin waxaan rabaa si kooban inaan ku sheego inay shirarkaasi si wanaagsan oo heer sare ay u dhacaan si guul ana ay noogu dhamaadeen ujeedadii iyo fariintii aan wadnayna aan u gaarsiinay meeshii aan rabnay inaan u gaarsiino waxaan hadda ku wareejin hadalka xubnihii kale Hibaaq Cabdullaahi Ducaale oo ka mid ahayd xubnihii uga qayb galay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya jawxo ayaa mar ay ka hadlaysay soo dhaweyntii Minnesota loogu sameeyay xubnaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya jawxo ee ka qayb galay shirka Washington DC ayay sheegtay in laga hadlay xaaladda ugu daran ee ka jirta bariga Afrika gaar ahaan midda Ethiopia sidoo kalena diiradda lagu saaray arrimaha shidaalka Hibaaq oo hadalka sii wadatay ayaa sheegtay in maalmo horeeyo laga dareemi doono isbedel weyn shirka ay ka qayb galeen uu daarnaa xaalada xasaasi oo si guud hadda looga warrami karin kulanka ay sheegtay Hibaaq inuu sii socon doono maalmaha dambe hadduu Ilaahay yiraahdo. Assalaamu calaykum kulligiin waxaan inii ka mahadnaqayaa soo dhaweyntaadna soo dhaweyseen labadii maalmood ee aan xagga ku maqneen hawsh aad u qurux badan oo fiican baan soo qabanay waxyaalo badan oo isbeddel ah baa ka socda East Africa taasina ay runtii ku wajahan tahay kala daadsanaanta maanta Ethiopia kala daadsan tahay runtii annagana meeshaas aan u aragnay inay faa'iido weyn nooga soo baxday ummadeennana aan shidaalka iyo barwaaqada la guranayo iyo ummadeeda kala daadsanaanta iyo dhibaatadana aad baan uga hadalnay
waddanka maraykankuna aad buu noo soo dhoweeyey gacan fiicanna uu nagala qaban doonaa waxaan hadda ku soo dhoweynayaa mudane ibraahim aadan بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka koobaad waan idin mahadnaqayaa runtii soo dhaweyntan quruxda badan ee noo sameyseen marka labaad sida ay waftigii ila socday wada soconnay ugaas axmed iyo marwo hodan iyo hibaaq bay sheegeen halkan maalin talaadadan ka baxnay tagitaanka annaguna wuxuu daaranaa casuumaad rasmi oo aan ka helay hay-adaha labada aqal ee maraykanka runtii ugaaskaa faahfaahiyey waxaan isleeyahay kulamadani kulamo runtii barakaysan bay ahaayeen waqti waxay ku soo hagaageen aad iyo aad qadiyadeenna loogu maaragtay dhagaha loogu furayo waxaa daliil u ah waa markii koowaad ee casuumaad rasmi aan ka helno way aqaladaas oo ayagu ayna soo casuumaan marar badanoo la kulana way jirtay laakiin innagaa markaa horta raadsan jirnay tan laakiin waxaa weeye marka dan lagaa lehay adduunka waa lagu soo raadsanayaa marka runtii howlo sida ugaasku sheegay muhiima ayaan ka wada hadalay oo ku saabsan guud ahaan dalka iyo xaaladdu ku jiro ta deegaankeenna ta khayraadka iyo shidaalka iyo dhibaatada ay China ku hayaan is-afgarad aad u fiican baan runtii ka soo gaarnay waxaana la oran karaa xiriir diblomaasiyadeed aad u wanaagsan oo isleenahay mustaqbalka waanu ahay doonaa ayaan halkaas ku soo gudubnay insha Allahu ta'ala shirarkani ma noqon doonaan kuwii ugu dambeeyay sida aan isku afgaradhay kuwa joogto oo dambe jiri doona tashiyo badan baa jiri doona insha Allahu ta'ala waqtigeeda iyo waayaheeda ayaan sugaynaa waqtigeeda insha Allahu ta'ala madasheena ayaan intaas ku sheekaysan doonaa wax dheeraada aad baad u mahadsantihiin guul iyo gobonnimo السلام عليكم ورحمة الله waxaan ku wareejinayaa walaashan hibaaq oo ayadna waftiga qayb ka ahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan idin wala salaamayaa aad baan u mahadsantihiin in maanta qabowgan u soo baxdeen ana soo dhaweysiin waxay tani muujinaysaa in isla wadaaga iyo isku xirnimada in ay tahay one of the things xornimada loo raadinayo hadda mudane Axmed iyo Carab iyo hodan bawayba ka hadleen bar ani waxa rabaa inaan ku daro in maanta xoroobi doono oo xornimadeeni inay soo dhawdahay marka inta dadka ina daawanaya fariinta inii farayo waxa weeyaan xornimo way imaanaysaa sidekii qaadan lahaydeen maanta soo muujiya waa la kala baxaya marka insha Allah this is not our first visit and it's not going to be our last marka ilaahay haduu yiraahdo the next time halkaas kugu imaano waxa dhihinaa calankii waa laga taagay wadankii oo la faaqabsada assalamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي واد سلامتين أنا قارهان أنا وفد النوغي مت أنا واشنطن دي سي أنا وواحد لو في حويان مركل الرها سامي قيبس مركل الرها وأد ماشي أتكلم قنتاي وحويان واحد معرتي سوم كورنيسو ما أنتم حانو هالني جانس كدوان جانس يدي هراء وأنا هراء سومرني siyaasaddu marba dhinac bay isku rogaysaa marka toobinkan ku haynaaye aanu meesha ku sii wadnaan leenahay insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waad ku haysaan waanan ma aragtay waan xoroobayna insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo si walbaan u xoroobaynaa gudnimo wax walba ku soo kuma dhamaysanayno aakhiran meesheedii wadadeedii aan haynaa marka don't ever give up hope is on the way afarta xubneed oo uga qayb galay shirka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo jawxo ayaa kala ahaa laba xubnood oo ka tirsan golaha dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo jawxo iyo sidoo kale siyaasiyiin aqoon-yahana oo ka tirsan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo Axmed Majeerteen oo kamid ahaa golaha dhexe iyo Carab Aadan iyo sidoo kale Hibaaq Cabdullaahi iyo Hodan Ducaale ayaa kamid ahaa xubnihii uga qayb galay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo jawxo kulanka Washington DC